kulan wacan saaxiibayaal halkan waa xulashada wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaan waxaa kamid ah UN-ka beeniye sheegasho ka timid Kenya oo ku saabsan kiiska badda iyo Soomaaliya oo guul gaari karta Turkiga iyo Qatar oo ku kala irdoobay dana ay ka leeyihiin Soomaaliya Qatar oo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed shaqo siinaya qorshe gaar ahna wata farmaajo weerar badan ku qaaday mucaaradka fududaystayna hadalkii adkaa ee Shariif abaabulka banaanbax kalena dawladda Soomaaliya oo ka bilaabanaya Muqdisho kacdoonka Puntland iyo jabhadaha Somaliland oo la xiriiriyo dawladda Soomaaliya iyo dhageysiga xil xayuubinta Trump oo si rasmi ah u bilaabatay qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan u diyaar garooba saaxiibayaal markale kulan wacan fadlan haddii aad inagu cusub tahay subscribe saar ku dhufo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad markaynu wararkeena baahino aynu ku bilaabnay qaramada midoobay ayaa beenisay sheegasho ka timid Kenya oo ku saabsan kiiska badda isqabqabsiga xuduudbadeedka ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa saameyn taban ku yeelan kara dawladda federaalka ee Soomaaliya sidaas waxaa ka digtay warbixinta guddiga khubarada UN-ka iyadoo xiisadda ay sanado soo jiitamaysa ayaa waxaa cirka ku sii shareertay bishii Maaj 2019 markii dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo shirkadda Spectrum Jo ay qabteen shirkii shidaalka Soomaaliya ee London shirkaas ayaa ujeedkiisu ahaa in la soo bandhigo natiijo baaritaana 2016 lagu sameeyay saliidda Soomaaliya hase ahaatee xukuumadda Nairobi oo ku dooday inuu xaraash ahaa ayaa eediday safiirka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay Kenya ku dacweysay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ 2014 kadib markii Nairobi ay ku hafatay wada hadallo ay albaabada u furatay oo ay ula furtay xukuumadda Muqdisho kuna aadan kiiska guddiga khubarada ayaa si kastaba ku adkaystay in shirkii London ay marin habaabisay Kenya isla markaana uusan khuseyn wax xirmooyin shidaal oo ku jira badweynta Hindiya ee meesha la isku haysto shirka si kastaba waxa uu diiradda saaray soo bandhigidda xirmooyin aan la xiriirin goobta la isku haysto mana ahayn xaraashid ama dalab u raadinta xirmooyin la xiriira meesha muranku ka jiro ayaa lagu yiri warbixinta xildhibaanayaasha UN-ka ayaa ka digay in muranka badda uu xasilooni darro ku abuurayo Soomaaliya haddii aan si taxadar ah loo wajin ayagoo ku dooday inuu kordhin karo weerarka al-shabaab ee dawladda intaas waxaa weelisa in nuqdayaasha ay tibaaxeen in muranku uu xoojin karo xiisadaha ka dhex jira ciidanka AMISOM oo Kenya ay qayb ka tahay Kenya ayaa 4,000 oo askari ay ka joogaan gudaha Soomaaliya muranka socda wuxuu karaarsiin karaa xiisadda Soomaaliya iyo dawladda Kenya taasoo fursad u abuuraysa al-shabaab si la mid ah waxay kala qaybinaysaa Kenya iyo dalalka ciidanka ku taageera AMISOM warbixintan ayaa sheegaysa in xiriir wanaagsan oo dhexmara labada dal ay muhiim u tahay amniga gobolka gaar ahaan gulufka ka dhanka al-shabaab ee howlgallada ka fulisa xadka labada dhinac maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa mudeysay in galdacwadeedkan ay dhageysan doonto bisha Juun ee sanadda 2020ka madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in kiisku ku haboon yahay in labada dal ay ka wada hadlaan hase ahaatee dhigiisa Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa ku adkaystay waxaan ku kalsoonahay maxkamadda cadaaladda Mijaro Kumuwa xogeeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa BBC-da u sheegay Kenya wax dhibaato ah kuma qabto Soomaalida balse hoggaanka dawladda Farmaajo ayaan ku qabnaa ayuu tilmaamay Soomaaliya ayaa la gashay heshiis Shell and Exxon Mobil kaasoo ku kacaya 1.7 milyan oo dollar kaas oo shirkadaha u ogolaanaya in dalka ay ka howlgalaan 30 sano xukuumadda gaar ahaan wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa carabka ku adkeeyay in xirmooyinka shidaalka laga soo saarayo aysan ahayn kuwa ay muranka gelisay dawladda Kenya wararka Kenya intaan ka bixin madaxweyne Farmaajo oo ku sugan Nairobi ayaa ka hadlay siyaasiyiinta ka soo horjeeda ee Muqdisho ku sugan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in siyaasiyiinta oo dhan oo ku dhawaad 2,000 oo qof ay doonayaan in dawladda caqabad ay ku noqdaan qaarkoodna ay rabaan xilal Farmaajo ayaa siyaasiyiinta maalmihii soo dhaafay warbaahinta ka hadlayay oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ku tilmaamay kuwa xanaaqsan oo maamulkiisa ka soo horjeeda wuxuu sidoo kale sheegay in caqabado waaweyn ee dawladda Soomaaliya ka soo wajahan dalalka dariska la Soomaaliya maamul goboleedyada khaliijka carabta iyo meelo kale isagoo ka hadlayay maamul goboleedyada madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay waxay doonayaan inay yeeshaan awoodda madaxweyne federaal oo kale waa caqabad waxaana taageero ay ka helayaan wadamada dariska iyo wadamo kale oo banaanka ah haddii aad wadamada banaanka aadan la heshiin waxa ay taageero siinayaan madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta xanaaqsan ayuu tilmaamay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo ka hadlayay siyaasiyiinta dawladdiisa ka soo horjeeda ayuu tilmaamay waayadii u dambeeyay siyaasiyiin badan ayaa aad u caroonayay waxay dalbanayaan qaarkood inay xilal helaan qaar kale siyaasadda waa ay ka fadhiisteen Muqdisho ayay ku joogaan waxay doonayaan in kaliya duldeelada dawladda ay tilmaamaan dana gaar ah ay wadamo ka leeyihiin oo ayaga ayaa inoo soo maraa khaliijka carabta ayaa ka mid ah wadamada xilligan falgalka ku leh siyaasadda Soomaaliya ayuu yiri madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
siyaasiyiinta waxa uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo cuqdadaysan oo diidan dowladnimada Soomaaliya. Dalka ayuu tilmaamay inaysan ka jirin xasilooni siyaasadeed. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la hadlayay ganacsatada dalka Kenya waxa madaxweynaha uu helinayay oo goobta deegaanka safiirka Jamhuuriyadda Federaalka ee dalka Kenya ku helinayay wasiirka caafimaadka xukuumadda Foosiye Xaaji Abiikar, wasiir dowladda arrimaha dibadda Cabdulqaadir Axmed Khayr, danjire Maxamed Axmed Nuur Tarsan, agaasimaha madaxtooyada Dr. Nuur Diiri Xirsi Fursade, la taliyaal diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee Nairobi. Farmaajo waxa uu aad kaga hadlay arrimaha dalka ka jira oo uu tilmaamay in xasilooni siyaasadeed dalka ay ka jirin. Isaga iyo ra'iisul wasaarihiisa ayuu tilmaamay in 3 sano isla shaqeeyeen, sanada u harsanna ay si wanaagsan ku dhameysan doontaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dowladda ayuu sheegay in dadaal badan ay ku bixisay inay ka hortagto khilaafaad soo kala dhexgala ra'iisul wasaaraha, madaxweynaha iyo baarlamaanka. xiriirka golaha shacabka ayuu tilmaamay inuu aad u wanaagsanaaday, iyadoo labada hay'adood uu tilmaamay in laba shaqo oo kala duwan ay qabtaan, balse arrintaas xubnaha siyaasiyiinta waxay ku tilmaameen in hay'adii sharci dejinta dalka awood loo sheegtay oo lala wareegay. madaxweyne Farmaajo ayaa taas si kale u dhigay, waxaana uu tilmaamay in shaqooyinkooda ay kala wataan balse xiriir wanaagsan uu ka dhaxeeyo wada shaqeyn ah. ra'iisul wasaaraha ayuu tilmaamay in sanada u harsan si wanaagsan ay wada shaqeyn doonaan, ayna ka fogaan doonaan xasilooni darro siyaasadeed oo dalka ka dhacda. madaxda dalkan ay soo horkeeni kartaa, balse caqabada ugu weyn ee xukuumaddiisa ay wajahday waxa uu ku tilmaamay siyaasiyiinta xanaaqsan, maamul goboleedyada iyo xubno kale oo uu tilmaamay inay dalka xilal ka doonayaan balse qaab qaldan ay u soo marayaan. dowladaha khaliijka iyo dowladaha dariska ayaana caqabado kale uu ku tilmaamay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waayahay Turkiga iyo Qatarna waxay ku kala irdhoobayaan dana ay ka leeyihiin Soomaaliya. dowladaha Qatar iyo Turkiga ayaa madaxa iskula jira markii ay isku maandhaafeen dana isdiidan oo yaala gudaha Soomaaliya, sida lagu daabacay jaraa'idka toddobaadlaha ee The Arab Weekly. wargeyska oo soo xiganaya ilawreedyo baahineed oo Turkiga ayaa shaaca ka qaaday in khilaafku ku yimid dhanka xukuumadda Dooxa oo isku dayday in meesha ay ka saarto dhigeeda Ankara. ilawreedyo siyaasadeed oo Soomaaliya ayaa xaqiijiyay iskorimaadka ayaa lagu yiri noqol ka mid ah warbixinta. dhinacyada dusiya xogta ayaa tibaaxaya in khilaafka markii hore uu kasoo bilowday goob ee Turkiga kasoo saarayso shidaal oo ku taala xuduud badeedka dalka dhaca bariga dhexe ee Qobrus. xukuumadda Dooxa ayaa joornaalka waxa uu sheegay in kalkii hore ee dowladda Qobrus ka heshay xuquuqda soo saarista gaaskaas. qormada ayaa intaas ku dartay in wafdiga Qatar ee Soomaaliya ay adeegsadeen siyaasad liddi ku ah Turkiga si ay u carqaladeeyaan soo saaritaanka una soo jiitaan dareenka mas'uuliyiinta Soomaaliyeed. tani waxay sare u qaaday tuhun ku aadan oo sii xoogeysan kara iskaashiga Turkiga iyo Qatar, ayuu ku daray. sidoo kale wargeyska ayaa xusay in labada wadan ay ku loolamayaan maamulka mashaariic horumarineed oo ku saabsan gaadiidka, dekedaha iyo kaabayaasha dhaqaale ee dalka dhaca bariga qaaradda Afrika. inkastoo uu jiro khilaafka, haddana Qatar iyo Turkiga ayaa sida ku xusan warbixinta wadaaga dana gaar ah oo ku saabsan inay taageeraan kooxaha islaamiyiinta siyaasadeed ee ka jira gudaha Soomaaliya, sida warbixinta lagu qoray. labadan dal ayaa xulafo muhiim ah waxay u yihiin xukuumadda Soomaaliya oo ay siyaasiyiin taageero siyaasadeed iyo mid maaliyadeed ay siiyaan. dowladda Farmaajo waxaa madaxweyneedkeeda ka harsan sanadii bilooyin. dowladda ugu saameynta badneed ee dalalka carabtana waa Qatar oo saameyntii ugu weyneed ku yeelatay dalka. geesteedana Soomaaliya iyo Qatar waxay kala sixideen heshiis shaqo ay ku heli doonaan Soomaali badan. maalmahan caasimada dalka Qatar ee Dooxa waxaa shir ku lahaa guddiga isku xirka dib u howlgelinta heshiiska adeegsiga shaqaalaha ee labada dal, waxaana xalay guddiga uu saxiixay qorshe howleedka lagu fulinayo heshiiska. waxaana ka mid ah in labada dal ay isweydaarsadaan liiska shirkadaha ka shaqeeya arrimaha la xiriira qaadista shidaalka. in labada dal ay isweydaarsadaan liiska shirkadaha ka shaqeeya arrimaha la xiriira qaadista shaqaalaha dalka dibadiisa loo qaadayo. waxaa la isla gartay in dowladda Soomaaliya ay qayb ka hesho shaqaalaha ka shaqeyn doona koobka adduunka ee lagu qaban doono dalka Qatar sanada 2022. saddex dowladda Qatar waxay adkeynaysaa ahmiyadda ay leedahay in shaqaalaha Soomaaliyeed uu furan yahay suuqa shaqada ee dalka Qatar. waxaa la isla gartay in la abuuro diiwaangelin laga heli karo xogta iyo macluumaadka shaqaalaha Soomaaliyeed oo dhameystiran. labada wasaaradood waxay isla garteen inay yeeshaan xafiisyo mas'uulka ah xiriirinta arrimaha shaqaalaha. Soomaaliya waxaa u qaabilsan xafiiska arrimaha carabta ee wasaaradda shaqada, sidoo kalena dowladda Qatar waxaa u qaabilsan xafiiska xiriirka caalamiga ee shaqaalaha. labada guddi ayaa hoosta ka wada xariiqay in sida ugu dhaqsiyaha badan hawsha la bilaabayo si shaqaalaha Soomaaliyeed fursad shaqo ay u helaan, karna loogu qaado wada shaqaynta iyo xiriirka labada dowladood. guddiga dib u howlgelinta heshiiska shaqaalaha ee Soomaaliya iyo Qatar oo ku saabsan fursadaynta muwaadiniinta Soomaaliyeed inay dalkaas ka helaan fursado shaqo ayaa la kulmay guddiga dhigooda ee dalka Qatar. heshiiska labada dal waxaa la saxiixay sanadii 1983. wararkaas markaynu ka baxnayna abaabulka banaanbax kana dowladda Soomaaliya ayaa ka socda Muqdisho. ugu yaraan 24 saac ee ugu dambeysay waxaa xaafadaha qaar ee Muqdisho laga dareemayaa abaabulka banaanbax lagu soo horjeedo dowladda Soomaaliya,
kaasoo ku saabsan go-aankii muddo saacadaha lagu xanibay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo ku wajahnaa beledweyne. sidoo kale abaabulkan ayaa waxaa si weyn loogu dareemay baraha bulshada ee ku kulmaan internetka oo dadka la wadaagay. warbaahinta waxay isku dayday inay hesho dadka ka dambeeya abaabulka banaanbaxan, balse waxaa la heli waayay shakhsiyaadka abaabulaya dibadbaxyada. qaar ka mid ah dhalinyarada loo xilsaaray qabanqaabada ayaa waxay sheegeen inaysan jirin qof isku xidha oo banaanbaxa wada, balse uu ka bilowday hadalhayn iyo dareen dadka qaar ay kana qaadeen qalqalkii amni ee dowladda ay gelisay Shariif iyo Xasan Sheekh. dhalinyaradan ayaa sheegay inay doonayaan in dareenkooda si nabadgelyo ay ku muujiyaan oo isugu yimaadaan laga soo bilaabo Liido ilaa kilomitir 4 ee Muqdisho. bilooyin ka hor ayaa mar sidan oo kale waxaa la isugu dayay in Muqdisho lagu qato dibadbax, balse waxaa la sheegay in markii dambe xiraad dheeraad ah oo magaalada lagu soo rogay loo baajiyay, iyadoo wararka qaarna ay markaas sheegeen inuu aad u yaraa abaabulka banaanbixii la filayay. waxaa sidaas oo kale aan la ogeyn in mar kale la baajin doono banaanbaxaas oo kale. kacdoonka Puntland iyo jabhadaha Somaliland waxaa lala xiriiriyay dowladda Soomaaliya. Cabdi Barre Yuusuf oo ah xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay lacag badan ku bixinayso deganaanshiyo la'aanta deegaanada Somaliland iyo Puntland. xildhibaanka ayaa sheegay inay hayaan xog ku aadan dadka dega galbeedka Somaliland oo dowladda Soomaaliya ay ka shaqeysay inay sameystaan jabhado isla markaana ay doonayso deganaanshiyo la'aan ka bilaabata Somaliland. odayaasha deegaanka ayaa dowladda lacag ay siisay ee saraakiisha galbeed ee Somaliland si loo abuuro xoogag hubeysan oo dowladda ka soo horjeeda, waana bilowday dhaqdhaqaaqaas ay yiri Cabdi Barre Yuusuf oo hore ugu tirsanaa baarlamaanka Somaliland. xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay hadda deganaanshiyo la'aan xoog leh ka abuurtay deegaanada Puntland oo qaar ka mid ah shacabka gobolka Bari ay ku dhaqaaqeen dagaalka dhinaca xukuumadda dani. waxay iska horkeentay hogaanka Puntland, waxaana ka dhashay beelaha gobolka Sanaag iyo Bari in dowladda ay ku kacaan, mana aan wax loo dulqaadan karo ayuu hadalkiisa sii raaciyay Cabdi Barre Yuusuf oo ah xildhibaan hore oo baarlamaanka ka tirsanaa. dhowr qof ayaa sidoo kale hore ugu eedeeyay dowladda Soomaaliya inay wado abaabulka qalalaasa ka bilowda dhulka degan ee Soomaaliya sida Puntland iyo Somaliland. mana jirto ilaa iyo haatan wax war ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya. xiriir ay warbaahinta la sameysay xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha way diideen in arrimahan ay ka jawaabaan. ugu dambeyntiina aqalka wakiilada Mareykanka ayaa si rasmi ah u bilaabay dhageysi si toos ah loogu daawanayo telefishinka oo ku saabsan in xilka laga xayuubiyo Trump iyo in kale. xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa isku dayaya in dadweynaha ay ka dhaadhiciyaan in madaxweynaha uu ku xadgudbay awoodiisa si dano siyaasadeed uu gaaro. ayaa safiirka Mareykanka ee Ukraine William Taylor iyo ku-xigeenkii xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Yurub iyo Russian George Kente ayaa ku hormarqaati furaya guddiga sirdoonka ee golaha. madaxweyne Trump ayaa waxaa lagu eedeynayaa inuu celiyo gargaar dhan $391 milyan oo doolarka Mareykanka oo Mareykanka ugu talagalay waddanka Ukraine. Trump ayaa shuruud ugu dhigay in dowladda dalkaas ay baaritaan ku sameyso Hunter Biden oo ah wakiilka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo hadda musharax madaxweyne. Hunter Biden oo ganacsado maalqabeen ah ayaa waxa uu la shaqeynayay shirkad laga leeyahay dalka Ukraine oo ka shaqeysa gaaska dabiiciga. madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu ku dooday in xubnaha ka hormarqaati furayo aqalka wakiilada ay markii hore baahayeen kuwa aan marnaba isaga ogoleen oo ka soo horjeeda. guud ahaan daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen xulashada wararka. waad ku mahadsantihiin si wararkeen aad ula socotaan. nabadgelyo.